taliyaha ciidanka booliiska Puntland General Cabdulqaadir Shire Faarax Ereg iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka booliiska Puntland ayaa maanta kormeeray qaybaha kala duwan ee xarumaha booliiska Puntland ee magaalada Gaalkacyo. kormeerka taliyaha ciidanka booliiska Puntland ayaa qayb ka ahaa kormeer uu taliyaha ciidanka booliiska ku sameeyay gobolada kala duwan ee Puntland. taliyaha ciidanka ayaa u kurgalayay xaaladda booliiska degmada Gaalkacyo iyo sida ay booliisku u shaqeeyaan. taliyaha ciidanka booliiska gobolka Mudug ee Puntland Cabdiwaaxid Cabdulla Warsame ayaa ugu horeyn ka warbaxshay kormeerka taliyaha ciidanka booliiska. halkan waxaan noogu yimid wafdi ballaaran oo hogaaminayo taliyaha ciidanka booliiska Puntland General Sareeye Guuto Cabdulqaadir Shire Faarax Ereg iyo wafdi uu hogaaminayo hogaamada booliiska iyo saraakiil la socota iyagoo halkan kormeer ku yimid kormeerna ku sameeyay ciidamada tirada badan ee qaybta booliiska saldhigyada laanta ilaalinta canshuuraha nabadgelyada wadooyinka CID-da damabaarista dhammaan hay'adaha kala duwan ee qaybta gobolka Mudug in badan oo kamid ah maanta ayuu kormeer ku sameeyay tirakoobkoodii iyo dadkaas inuu wada arko iyo xaaladahooda ayuu generaalku iyo dadka caadaystay oo mid iyo laba aan ka badnayn inay shaqada mushaarkana qaataan aysan shaqayn iyadoo inta badan ciidanku shaqadiisa ku jiro noocyadiisa kala duwan general ku soo dhaw gobolka Mudug qaybta booliiska gobolka Mudug ku soo dhaw taliyaha ciidanka booliiska Puntland Cabdulqaadir Shire Faarax Ereg ayaa booliiska ka codsaday inay u shaqeeyaan si hufan isla markaana ay gacanta ku soo dhigaan dadka dambiilayaasha ah. waxaan halka u nimid waxay ahayd kormeerkayga caadiga ah ee aan wadnay gobolada kala ku soo marnay oo ahaa laba ujeedo lahaa. ujeedada koowaad waxay ahayd inaan u kurgalo tirada iyo tayada ciidanka booliiska si aan u ogaano uguna soo bandhigno dawladda iyo dadweynaha nooca ciidanka u shaqeeya wuxuu yahay iyo shaqada uu qabto tiradooda iyo tayadooda. qodobka labaadna wuxuu ahaa waafaqsanaa iswaafajinta shacabka iyo booliiska wada shaqayntooda. sidaad la socotaan ciidanka booliisku waa adeegaha bulshada. sidaa darteed ciidanka booliiska waxaan ka codsanayaa ma oranayo waa ku amriyaa waxaan leeyahay waa codsi in loogu shaqeeyo shacabka si hufan oo nadiif ah. waxaan raacinayaa inay ogaado ciidanka booliisku inuu yahay shaqaalaha shacabka. taliyaha ciidanka booliiska ayaa sidoo kale ka codsaday shacabka inay la shaqeeyaan ciidanka booliiska Puntland isla markaana ay u soo gudbiyaan xogaha iyo dadka ka dambeeya falalka amni darro. sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa dawladda iyo shacabka isku duubni in la aamino lana shaqeeyo ciidanka booliiska. ciidanka booliisku ma istaagi kara meel walba wuxuu ku shaqeeyaa informationka shacabku siiyo. waxaan leeyahay marka qofka dembiga galay haddaadan wax kala kari karin wejigiisa aqoonso in qofku qariyo informationka uu hayay ama qofka dambiilaha uu arkay isagoo ujeedadiisu tahay baqdin uu ka qabo in la soo sheego magaciisa oo la hebel baa ku soo xiray. waxaan leeyahay marka haddii aad arki jirtay aad hore u arki jirtay in sirta aad sheegto ama sirta aad u soo sheegto muxuu ahaa booliiska qofka informationka shacabku uu keenay ama warbixinta shacabku uu keenay qofka isku dayo inuu ku celiyo qofkii loo keenay oo yiraahdo hebel baa ku soo xiray waxaan idin sheegayaa in aanu ka mid ahaan doonin ciidanka booliiska mar dambe. Shaafic Cabdulqaadir Warsame Somali Cable TV Gaalkacyo.